koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa كبير سناداي وكوحدي كلمان كل ميانو 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 كبير سناداي كلمان هداي كبير كتاي كل مية وردن بك آخرين ماينو برنامجيدي وحدين لقيتكي يانا مردن بآخرين ماينو كل ميان عقواريسي كبحين مرد لقيساني تفسير كأن راديا كأغريو وين جوجينيا farsamada dhan badan jooji ka warama waryaana kulmiye kama maarmayno aryaadaha qoladiinan kalamaanka iyo raadiyo kulmiye iyo Soomaali weyn oo dhan waxaan dhihi lahay naxariis la'aan waa naarsahankeed waa si loo sheegay waxaan ku dari lahaa laba nabad wadaagtaa noloshana wadaagtee ummadiis wada nacab naar bay wadaagtaa hore waxa loo yiri walaalo isnacay waa xabaala badiyaan waana xoolo yareeyaan wartaas rabadayna waxa la yiri labadii qofood ee jecel ilmees ku dhala war may leeray lamadii dhulaa usganeeli la sariir isla qoraasa wasaas ma ana laba nabad wadaagta caana wadaagta war laba ifka ku eloobay ayaa xabaalaha ku jaara aryaanaha hore loo yiri dhalyaanahay manay dhahaan iskuma dhowrna xaydhide lama qof oo dhimatay ismaba oga waa isku agduugan yihiin xaydar isnaqdaan war ma haysiine laba wasiir ayaa Twitter ku celowday wasiirka maayadda Bayle iyo wasiirka qorsheynta Jubbaland Aadan oo xirsi ayaa Bayle dul qaadan waayay commentiga Aadan kadibna balooga u saaray warnimada hore waxa loo yiri nabad Facebook oo Twitter baa dhaanta warheede hore waxa loo yiri haddaan baloog jirin lama kala badbaadeen naga tag heesta ma taqaanida heesta waxay ahayd haddii aan baloog jirin lama kala badbaadeen ay ahayd warnimada maanta durdada ka gacdeene hore ay xildhibaano badan aan friend isu dhaheen ariya friend farkaad sheegayna waxa ahay fajaha jabshe haddii aan la jirin shan lama wadaagin sheekadu ma socotee haddii uusan Facebook boostiga la soo dhigo buunbuunin commentigu public loo bedeli karin beentuba ma socoteen walaalo ma hasaase xawaale uu waale waa laga hoyda walaalahay warkiina hal xabba kama fahmine maalinka isdhageysanaya nimayo gabay ma taqaanina gabaygu waa la isma waryaarahan wargeedkan hees iyo gabayba waa ku gacan galaye maanaha waalanna sacdan baa laga heesaya cadan maahina adiga caada keenay cadaada laga heesaa war cadalaa laga heesayaaye inta laga joojisaan sheekadan waa ku wareeree maanta baarlamaankii laba sharci baan sixiyey kadibna waa la soo xiray haddii la soo xiray shimaa baarlamaanka maxkamad la geeyhaahe war loo biro leela fasaxaynayo yaa haddii lama sano lagu xukumayaa wax noo ansixihaayahe ayaa baarlamaanku mooshin ay keenay xal loo xiray warheedna baarlamaanku labada sharciyu maanta ansixiyey waxaan aad ula yaabay sharciga ku saabsan bangiga dhexe horta buuq waa ka dhashay kadibna iyadoo weli hadal taag jiro ayuu baa la ansixiyey sharcigaasina wuxuu ahaa in bangiga dhexe ajnabi iyo wadani ay labaduba madax ka noqon karaan war bangiga dhexe nin ingiriis ah madax ka noqonaya asagana jidka loo falay waa gartay bangiga dhexe haddii ingiriis qaatay bangiga sare mana loo dhaafay waryaara bangiga hoose ciddii igu timaada waa eedaysa arbaha sheega fiiriya amaada iskalene warnimayo bangigaan anagii ajnabi looma qaybsamee walba midka adduunkaan naloo qaybiyo war adeero haddii bangigiinii uu ingiriis qabsaday inukunba ictiraafku loogu dhowyi waheedhahaya haddii Soomaali la waayey qof meel lacagu taallo lagu aambini karo maxaa diidaya in ajnabi nal kugu dhiibo waryaaraheen waxaan maqli jiray wadaad yiraahda corruption tuugo bahti musuqmaasuq waxa rabtaan inaad saan dawlad ku noqotaan tiibaa run noqotay warnimayo anigu waxaan ka baqayaa wax kale aad ku mashquulsantihiin lacagtii bangiga laga musuqmaasuqi jiray ninkan mushaarkiisu inuu ka bato waaba isku dareemi karnaa beesiyo ilisna qaadayne si loo ansixiyo loo dadajiyaan u jeednaaye war adeero ma cadeeha cadaato wargeegya mayna arjaray talyaani taliye ee ingiriisa hukume talyaani taliye ee ingiriisa hukume
tiyeelagnagdi aryaadaha maanta madaxweyne cusbaayo puntlandna xilkiisi la wareega kadibna wuxuu yidhi haddii cabdiweli dulqaad eeday anigu ma dulqaada doono yaa war cabdiweligaas waxau dalbaday in la iska cafiyo nausan dulna u naqahay una kuwa cafina aryaadaha wadaadka halees cafiyo dhahaya miyaa cabdiwelina ka dhegansada walaadeeno tukarraq hadduu ciidanka ka soo rarayo waan cafiyeyna ani warsiinhaaye madaxweyneyigeen lafta gareen oo kowdhowna dooradaani arbaamal doorane may dheegi jiray hayaannaba wasniingu iidisa jimacada dheegi jiray wari arbaarakaabasiyeedu arbaawo la ereemasaarahaaye reer may kale liyaabsana arbe ee arbacadanii saamaytay mas-uuliyiba arbaado isku jeelani madaxweyne lafta gareen waxaysi wuxuuna yidhi abwankii siduu yidhi waxaa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaamo inay tahay matalada warwar ma haysiina beledweyne waxaan weligeed la arkin oo la maqal baa ka dhacay islaamiyana dhalay warwarkayga dhex gelina dhegayso nin askari ayaa gabar dhaawacay gabadha ciddeedii askariga inta qafaasheen asigoo dhaawacay shabaab u geeyeen kadibna dawladdii inta ciddii ka harta ayay gebagabaysay marka haddaad maqli jirteen dad shabaab u dacwooda askartii dawladda inta la qaada hadda loo geeya shabaabkii eebow ha ii geyn warnimayo haddaan nahay soomaali diliga dhaawac waa naga dhexeeya laakiin shabaab isku dhiibisa nagama dhexayn war shabaab arrimahan weli la arkin ay sameeyeen bu'aale meel fagaara ah ayay nin daasha ku toogteen marka haddii awal soomaalida ay dhihi jireen waa jaajuus maanta waa daash bay yidhaahdeen war amiirka daashka fagaaraha lagu toogtay xasaanaddii ma laga qaaday war shaqa dawladdu ka gaabisay qabteen warnimayo dawladda qadar waxay cambaaraysay kumba gacmeedkii guriga jacfar lagu tuura war qadar wax kaloo cambaaraysa ma weysa mabal la tuura naguma cusbe yaa maaday ku cambaareey ayaanta xuma dhicine aryaada kii weynaya tiyaat